رب ارحمه عالمنا محمود الوالي الأمجد رب ارحمه عالمنا محمود الوالي الأمجد إنه بنو وسوق من أهل الخير والرشد رب ارحمه عالمنا محمود الوالي الأمجد قد لقبوه بمعالم عطش saacadu waa taqriiqii fiidnimo ee geeska Afrika halkani waa deegaanka Cali Geedi waxa goordhow ku soo gabagaboobay banaanbixi ziyaaradii macallin Catoosh macallinka ayaa dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho banaanbaxa waxa ka soo qayb galay dad fara badan waxaanu makarafoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah ahbaabtii ka soo qayb gashay banaanbaxa waxaan isugu nimiday galabta banaanbax oon ku khatimaynay ziyaaradii macallin Catoosh oo noogu dhamaaday halkan ziyaartii galabta ay noo joogto khatin gabangaba ah macallinku waxa uu dhintay arbacada beriga aheed arbacadeeri kale 12 saac oo subaxnimo xilligaas ayaa waxaa noo soo bilowday ziyaarta bilowgeedii quraan akhris iyo dhikri iyo salawaad iyo nicmo intii la doono oo xagga diinta ah iyo sadaqa la bixinayo intaas ziyaartu waa socotay galabtana waxaa lagu khatimay banaanbax cajiib ah oo ay isugu yimiday jameecooyinka kala gedisan oo ahlu sunna waxaynu marka galabta ku gabangabaynay intaan galabta ikhwaankii waa u ducaynay waana fasaxnay sidaanana ku kala dirnay galabta oo ah maalin arbaca ah waxaan iskugu nimid ilaahayna makaniyay ka soo qaybgelidda qatinkii ugu dambeeyay aaskii taxsiidii macallinkayna macallin maxamuud abubakar maxamed wacdaan oo loo yaqiino macallin Catoosh waa sugay macallinka rida iyo raxmo allaha siiyo waxa uu ka mid ahaa dadka cimrigooda oo dhan ku dhameeyay u adeegidda diinta muddo oo 60 sano ku dhow ayuu diinta islaamka u khidmaynayay waxa uu soo bilaabay saqiirnimadiisii ilaa hadda uu ku dhintay arbacadeedii kale 81 sano intaas diinta ilaahay u khidmaynayay waxaana la yiri qofkii oo diinta ilaahay u adeega asagana waa loo adeegaa taas natiijadeedu waxay noqotay intaas ood arkaysaan oo aalaaf mu'allafa ah inay ka soo qayb gasho gabangabadii ziyaartii lagu sagootinayay falilaahi alxamdu washukru taas waxay na tusinaysaa inaan yacni maaragtaa ku daysanno dhammaantayna aan shaqo ka dhiganno macallinka wixii shaqo u ahaa macallinkayna rida iyo raxmo allaha siiyo dhirirka muddada dheer oo diinta u khidmaynayay tilmaam kale ma rabto waxaa tusaale u ah aniga ood hadda ii jeediinoo waayeel ah dadka uu soo quraan baray isii quraan baray intaas ayaa maaragtaa ku filan rida iyo raxmo allaha siiyo macallinkayga macallinkiisi waaye kumanaan kun ayuu maaragtaa diinka soo baray falilaahi alxamdu washukru waxaan maaragtaa rajaynaynaa mashrabkiisii maaragtaa muxuu ahaa oo ka cabay annaguna maaragtaa inaan ka cabno waxaan rajaynaynaa shaqadiisa inaan shaqo ka dhiganno waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisii maaragtaa inuuna marsiiyo wuxuu ka mid ahay xaqiiqatan sida aan ku rajo weynahay oo hubaal noo ah min awliyaa irraxmaan ayuu ka mid ahaa inuu shaqadan qabto waxaa sabab u ahaa ishaaro oo ka mid ah axad awliyadii ilaahay ka mid ahaa ishaaratiisa ahay ahaad sheekhayna oo la dhihi jiray sheekh axmed sheekh daa'uud oo min awliyaa irraxmaan ka mid ahaa sheekhaas ayaa ishaaray dugsiga uu ishaaray asaga ayaa maaragtaa u dhiibay asagoo cunug yar oo xer ah dhallinyaro ah cilmina ku baranaya degmada ceeldheer halkaas ayaa shiiqu ka waday macallinku marka uu shiiqu wadaayay in dugsi loo dhiibayo ma ogeyn sida uu afkiisa nooga sheegay waxay ahayd ishaaro ilaahayay ahayd ishaaro waxay ahayd awliya ayay ahayd waxyaabaha dhacay oo macallinku afkiisa nooga sheegay waxaa ka mid ah dadka ahaaladiisa ahay qaar ka mid ah waxay ka soo horjeesteen amba ay diideen dugsiga inuu qabto ayagoo yacni maaragtaa diidaayay macallimiin badan oo waaridkiis ah waayeello ah in yacni ay macallinka muxuu ahaa fiiriyaan
amba ay yiraahdaan cunugan muluqa annaga uga haboon markaasaa sheekhu wuxuu ku yiraahday sida macalinku afkiisa uu nooga sheegay wax badan ayaad ka heli doontiin laydinkamana nacfi badnaa doono ee ka hor wareega ilaahay qadartii maaragtaa sida ayay noqotay galabta waxaan joognaa banaanbixii macallimkaygii macallim maxamuud oo waasuga maxamed wacdaan oo si fiican loogu garan ogaa macallim catoosh oo haliyay diimeed ahay macallinka arbacadii hore ayuu macallinka ilaahay subxaanahu wa tacaala naga jeclaaday arbacadaas ilaa hadda waxaa socda macallinka khayraad fara badan macallinka waxaan joognaa galabta qatinkii iyo gebagabadii oo intaanoo khalqi ah ay ka soo qayb galeen macallinku wuxuu ahay macallin intaas oo qofood qur'aan baray macallinka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa macallimkayna firdows alaclaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku marti qaado macallinku shiikhayna sheekh axmed sheekh daa'uud ayaa u ooday dugsiga ilaa furuuc badan oo ka farcantay ayaa macallinka dunida daafaheeda waxay ku haysaa dugsiyo oo qur'aankii kariimka ahay ou baray ilaa iyo hadda dadka sii baraayo macallinka waxaan xasuusanaa maalintii janaasadiisa in la kala waayo meel dadkii ay kala istaagaan ay waayeen waxay daliil u tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaay waxaa la yidhaahdaa qofka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaado ilaahay jibriil buu u naadiyaa markaasuu yidhaahdaa ahlu samaha waxaad ku naadisaa axadkaasaan jeclaadee jeclaada markaasaa dadka ahlu arlada ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul u dhex keenaa marka macallin catoosh wuxuu ahay macallin aad iyo aad looga yaqaano dunida dacaladeeda annaga iyo dad badan oo qur'aanka kariimka ah uu baray oo dad odayaalo ah ay ka mid yihiinoo maanta goobtan jooga jamaacooyin fara badan ayaa ka soo qayb galay waxaa goobta ku sugan sheekhayna sheekh maxamuud godane dadka wuxuu ka mid yahay galabta meeshan ugu bannaanbaxaayo gebagabadii iyo gunaanadkiina waxaa laga dhigay wax loogu qatimo iyo wax loogu gunaanado wixii ugu khayrka badnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamay haddii yacni kelimatu laa ilaaha ila allaahu la miisaamo ee waxa adduunyada yaalla la miisaamo in ayadu ay miisaan badinayso awalan waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala allahaasoo ina waafajiyey galabta inaan ka soo qayb galno ama aan dhigno banaanbixii lagu soo gutinayay macallinkeenna macallin maxamuud abuukar maxamed wacdaan oo dadka u yaqaaniin macallin catoosh macallinkeennu taariikhdiisa iyo mansabkiisa iyo derajadiisa halkaa laguma soo koobi karo waxay u baahan tahay wakhti aad u badan waxaan u mahad celinayaa inta gacan ka geysatay ama ka qayb qaadatay inay timaado ama ay maxaan ku dhahaa janaasadiisii iyo khayraadkiisii ka qayb qaadatay oo u mahad celinaynaa dhammaan jameecooyinkii garabka nala ahaa ee saaxiibada aan ahayn ee naga dhexeeya khayraadka iyagana waxaan u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay soo qayb qaateen aaska macallimka حسين أحمد مقدشاوي شبكة المتحابون في الله مقدشو رب ارحمه عالمنا محمود الوالي الأمجد رب ارحمه عالمنا محمود الوالي الأمجد إنه بنو سوق من أهل الخير والرشد رب ارحمه عالمنا محمود الوالي لقبوه بمعلم عطش ما عهد رب